dawada lagu soo dhawaada talaabadii ugu horeysay ee maanta fadeexada ahayd ee uu ku kacay madaxweynaha talada Soomaaliland loo abaabuday ee sheeganta uu Axmed Silaanyo xukunka talada uu hayay ee uu la wareegay madaxweynihii hore ee Daahiriyaale waxa xalfadaha iyo munaasabadaha qaranka sida 18 Meel iyo waxyaabaha kale ee hadba ay ka mid tahay ciyaaraha gobolada oo ay shirkadda Somtel ee isgaarsiinta ee Dahabshiil uu leeyahay Maxamed Saciid Ducaale ay leef gelin jirtay dhammaan waxyaabahaas qaranka waana shirkadii bartay caalamka in ciyaaraha Soomaaliland ee gobolada laga daawado si live ah oo toos ah dal iyo dabadba ay shacabka reer Soomaaliland iyo adduunkuba meel kasto ay joogaan ay ciyaaraha Soomaaliland ka daawadaan waa shirkadii hirsay Somtel ee ku soo kordhisay Soomaaliland waxyaabaha live ka ah ayaa madaxweynaha Cornel Muuse Biixi Cabdi waxa uu durba ku kacay qabyaalad qaawan oo geed ismarin isagoo oo wiilka ay haweenayda u ah gacan yaraha ee in uu Saciid ee la shirkadda Samcable ee ay leedahay ama uu leeyahay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ee isgaarsiinta ee Samcable ay maanta gabiyahanba la wareegtay xalfadii caleensarka iyo lagu dhaarinayay Muuse Biixi Cabdi taas oo shirkadaha kale ee sida Somtel iyo Telesom loo diiday in ay iyaguna gudbiyaan matalan macaamiishooda kala duwan ee ku xiran si ay u gaarsiiyaan xalfadda qaabka u dhacayso hase yeeshee daawadayaal xalfadii maanta ee lagu caleemasaarayay Muuse Biixi ayaa waxa ahayd abid xalfadii ugu hooseysay ee madaxweynayaashii ka horeeyay ee markii lagu wareejinayay xilka sidii madaxweynihii hore ee la doortay ee Daahiriyaale Kahin maalintii loo dhaarinayay xilka madaxweynenimada ee waqtiga uu hogaamin doono Soomaaliland ayaa waxa ka soo qayb galay wufuudda caalamka waaweyn iyo wadamada dariska la ah mas'uuliyiin waaweyn halka madaxweyne Silaanyo markii xilka uu ku wareejinayay Daahiriyaale xalfadii caleemasaarka iyo dhaarinta waxa iyadana goobjoog ku ahaa gudoomiyaha baarlamaanka dalka Kenya Farax Macalin iyo madaxweynaha Kilika Shanaad iyo wasiirro waaweyn oo ka socday dalka Ethiopia iyo waliba beesha caalamka oo iyaduna wufuud waaweyn soo dirtay halka Muuse Biixi xilwar caleemasaarkiisii maanta iyo dhaarintiisina ay ka soo qayb galeen meeqaamkii ugu hooseeyay dalka Djibouti oo watay Muuse Biixi ayaa afar wasiir soo diray inta kale waxa Kilika Shanaad laga soo diray ku-xigeenkiisa ayuu Cabdi la soo diray Ethiopia waxay soo dirtay mas'uuliyiin hoose dhiijiya halka wax kale oo ka soo qayb galayna aanay jirin safiir yar oo aan sida adduunka aan magac weyn ku lahayn ayaa ka soo qayb galay hase yeeshee waxa tani muujinaysay xalfadii Muuse Biixi Cabdi mid gabiyaha dalka Soomaaliland maanta aad looga dabaaldegin inta badan marka laga tago xaafadiisa ay raahday goljono iyo jigjiga yar oo in yar oo ciyaala ay ku faraxsanaayeen mooyee waa madaxweynihii koobaad ee Soomaaliland ee meeqaamkii ugu hooseeyay lagu caleemasaaro balse waxa ay talaabadani muujinaysaa in Muuse Biixi Cabdi aanu gabiyahanba wax xidhiidh ah oo caalamka aanu hore u lahayn iyo siyaasadid waaweyn oo adduunka oo uu saaxiib la aha isla markaana Muuse Biixi Cabdi ayaa marka la dhehdo xalfadiisii maanta waxa ay badka soo dhigtay inuu ahaa siyaasi aan dhaafin xafada goljono waxa sida oo kale gabiyahanba ka soo qayb galin xisbiga mucaaradka ah ee waddan ee ugu weyn Soomaaliland iyo waliba beeraha waaweyn ee Soomaaliland ay idhaahdeen oo iyaguna gabiyahanba ka soo qayb galin salaadiinteedu caleemasaarkaas iyo dadka ganacsatada ee waaweyn sida oo kalena waxa ay Muuse Biixi Cabdi shicir ah arinta iyada laftigeeda uga hadlay in oo aad ugu xun yahay xisbiga wadan inuu iman waayo iyo waliba beeshiisa garxajis oo iyaduna xalfadaas ku gacan sayday Muuse Biixi maadaama uu isagoo uu hore ugu sheegay xilligii murashaxa Soomaaliland arintaas oo ay Muuse Biixi ku noqon doonto caqabadii ugu weyneed laakiin waxa maanta xalfadaas ku dhamaatay fadeexad iyo
protocol xumo iyo isdhex saaxiibkaygii ila tartamay ee iyo haneeyey ee laba goor hore dalkan intuu ku tartamay haneeyey Faysal Ali Hussein Faysal waxaan kaloo hambalyeeyaa meel jooga waan soo dhaweynayaa saaxiibkayga ila tartamay oo dalka dibadda kaga maqan mudane Cabdiraxmaan Abdullaahi Ciifu oo qaybtii Muqdisho oo ay ahayd iyaguna iyagoo qaranka Soomaaliya ixtiraafsan ka soo qayb galaan afiraya ay dhawaan ka soo qayb gali doonaan oo aan iskaasho doono